السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قالي سولو هذا هذا ما فيديو يدين دوبهاي كشكينا يا إن شاء الله مصلحة إيو سيجي هو رأيها التفسير بل يسوق كهلا يا إن الرمى هذا باللجيست إن شاء الله يصيروا الله يقول كان إلا دلمية عمل بوها الله إلا دلمية عمل أسجى خلت ما بقينا يبا يعني هي وحكاها الله يا إني ما ركتي أود وشاغش عمل بل أدوك دقيست إيدك دقيست وحو قال الساعة كدبنا رجعت ضهي رجعت سلايا فرتي أفري لو الساعة كدبنا رجعت ضهي رجعت من الدين الإسلام كأيا بنيني أفر لا تنسى كدب رجعت وري مركي اللي غفرتي قصب على غفرتي أفر لا تنسى كدبنا رجعت بانري يعني وانسوع الشدي دين الإسلام كوحيدي يسا جواب إن ستح دلاخ الوخو هدي هذا الوخور الله إيتالو ستح بالعدودنا أي سوق لنا يسوق ستح راس بالنوحرين مشوكان ساي سميكرين سيد دين الإسلام كيدي يسوق أنا سيدا عن هروش قصب يوهن دلال بليا كيريدي واي هاي مركي هوري وسوق وحن وسمين هي أقلقا مراهن ميا موحولة حولة وميل كدبرتي كوحي حداي مقف بنا آذنا أو لغوية قعملة أو إلهي أبورتي أو أدوكو كلاء مياد waxaad islahayd meel buu kugu xidhnaani oo meel buu kugu oodnaani hadda maxay tahay qaylada dambe eed ka dhawaaqaysid inuu qof xidhiir la yeeshay iyo inuu sidan iyo sidan maxaaba kaa siinayaba waabad kala tagteen inaad iskaga samirtay ahayd ilaa adiga kasbaday ma qof baa dulmiyadada wiilkaas fiiri fiiri dad buu eedaynaya aday dad buu eedaynaya fiiri aday eedi isku day in guusha dhexdeeda lagu handada ama dhibaato lagu geysto oo hal talaaf xoogaa sidaas laga furtay 24 saac kadibna aan rajactu dhahay rajactu diinta islaamka ayaa banaynayso ninka xaaskiisa waxaa loo dhahay 3 bilood cududii qaadanay waxay tahay in isbedel uu imaado in la soo rajuuco ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa mas'uuliyadda uu saaray rajactada mas'uuliyaddeeda iskale waa ninka ragga ah taa waa markay xanaaq timaado waa markay reerka problem uu galo oo ma markay iyagu ay family problem ku dhaco laakiin tan adiga darro sameeyay adiga akhlaaq darro islaantaada ku sameeyay xaaskaada ku sameeyay marka taas iyo tan way kala duwan tahay xoog in lagu sheegto xaq baad u leedahay marka gabadh reer dhaleen baad meelaha sawiraysay meelaha ku ciyaaraysay waxbaan qabaana waad lahayd taas way dhibaatada isku geysatay taa way oo aan cilmi iyo ictiraaf kala diinta aan u hayn Nu har jag äntligen mindre fett. walaalayaal waxa weeyaan waa qaladka iyadoo loo sinayn baa qaladkii dadka dusha laga wada saaray qof aad aragto isagu qeyr masuul ah oo wuxuu isagu sameeyay inuu isku canaanan lahaa bulshada intuu soo horfariisto u dhilaha layga raali noqdo aniga xaaskayga ku ciyaaray aniga kasbaday inay Soomaali soo dhax gasho inay qasab laygaga furo dhibaato anigu geystay weeyo anaa khaldanaa ha layga raali noqdo xaaskayga ha la ii soo celiyo xaal iyo xumeyn baan bixini يعني waxaan Soomaali lagu arag baan sameeyay aniga xaaskayga aan mas'uulka Ilaahay iga dhigay xaqeeda qaaday baan meelaha wareejinayay intuu dhilaha isagii uu saari lahaa maaragtay wuxuu u geystay isagu naftiisa u geystay gabadh miskiin oo xaaskiisa inuu dulmiyay buu wuxuu saarahayaa khaladka dhan buu wuxuu saarahayaa dad mas'uuliyiin ah sidan iga yeelay dad baa xoog iga furay dad baa igu sameeyay buu leeyahay intuu isagu dhila war layga raali noqdo wax allaali waxaan sameeyay raali xaali xumeyn baan bixini gabadhan hadaan dulmiyay waaban dulmiyay halayga raali noqdo aadama anahay oo waan khaldami karaay qof bini aadanna waa kii khaldama mar walba halayga raali noqdo intuu dhilaha halkaas intuu soo fariistay dad wuxuu leeyahay dad buu wuxuu ka sheegay wuxuu leeyahay waa sidan baa la yeelay iyo xaaskayga waa laga furtay waa laga eriyay waa la yeelay waa laga marka Soomaaliya Ilaahay laga baqo waxa weeyaan qof walba inuu khaladku isagu leeyahay uu qof kala dusha ka saarin horta inuu qofkan khaldamay oo khalad uu sameeyay bal ha qirto kadibna marka la isugu imaado wixii xala ma jirtaba qirashadiiba ma leh
qof walba isagii baa isla quman isagii baa la dulmiyey qof isagii dad dulmiyey oo dad dusha ka waxaysan baa waxaad arkaysaa anaa lay dulmiye ku haya marka adduunkan wax kaleeta weeye ninkan Catoosh waxaan codkiisa idiin dhageysinayay maalmahan oo dhan maba dhageysanaynin anigu xalay saakiin baan arkay oo fiiriyay YouTube-ka dhowray waan yaabay waxaan la yaabay yacni waxaad ogeyd buu sameeyay oo waxaad ogeyd baraha bulshada iyo adduunka Soomaaliya oo dhan qabsaday markaas wuxuu eedeynayaa dad baa laga furtay qasab baa laga furtay kan baa laga waraale ahaada war xaali xubin baa bixin war walaalayaalow yacni hadduu xaaskiisa si dhaba u jeclaa oo danaysi ayna meesha jirinoo wax lagu dareysanayo gabadha miskiinta labada dhinacba ninka waxaan ku sameynaya ka duubayay arrimaha watay iyo ay leedahay lacag buu siinaya ma shaqaale yar baan u ahaada iyo isagan haddayna dana kala lahayn oo jacayl dhaba uu meesha jiray halka intuu soo fariisto oo in la soo fariisto la dhihi lahaa qaladkaygii war qaladkaygii waan qirtay war xaaskayga laga sii dayn war nolosheedii weeye war ka weyn buu dhihi lahaa marka waxaad arkaysaa inuu dulmigii uu ku sii dhacad yahay walaalayaal insha Allah aad baan idin salaamaya waxaan hadda ugu soo noqday waan la yaabay wax aan la yaabay uu igu noqday codkan markaan hadda arkay waana qalad weyn weeyaan waa waxa maaragtay nimanka in badan oo kamid ah markay gabdhaha furaan ay ku abiyuusan dhibaatadan oo kaleeto ama aniga markan uu leeyahay waa la soo ceshaday waa kan xiriir yaan la sameeyay waa marka reerku dhibaato isku sameeyaan ayaga nafahaantooda ay iskhilaafaan laakiin